warjamacii oo khaalid jana nadireer tolkay jana kuwa rooyin jacayl baan idin qabnaa. wafdi ballaadhan oo ay hogaaminayeen labada musharax ee kala ah Jaamac Abakar Dubbe oo u sharaxan golaha wakiilada Somaliland iyo Khalid Xasan Xaaji Diiriye oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco kana sharaxan xisbiga Kulmiye ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay degmooyinka Yurowe, Beer, Ulunley, Fadhixun, Magaalo Yar iyo Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer. waxaanay degmooyinkaasi ka furteen xafiisyo cusub oo looga ololeyn doono labadaasi musharax. dadka deegaanka oo si weyn u qaabilay una soo dhaweeyay labadaasi musharax ee kala ah Jaamac Abakar Dubbe iyo Khalid Xasan Xaaji Diiriye ayaa sheegay in maalinta doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee isbarkan ay cod iyo cudud la garab istaagi doonaan labadaasi musharax ee shirraban. musharaxiinta Jaamac Abakar Dubbe iyo Khalid Xasan Xaaji Diiriye ku soo dhawaada magaaladiina Beer. waa magaaladeeni, waa magaaladii codka bixin jirtay, waa magaalo aad iyo aad u ballaaran. marka waxaan leenahay diyaar baan idin nahay. aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa si mug leh iyo miisaan baan idinka mahadnaqayaa saa u soo dhaweyseen xildhibaanada uqaasha. waxaan leeyahay idinkan u noqda kuwii guuleysta ee Ilaahay guuleeyo. waan idin soo dhaweynaynaa, raallina waanu idinka nahay. mar laba salaan kasha iyo laabta ka soo goday baan idinku soo dhaweynaynaa, qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa. ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa inaad ku guuleysaan insha Allah. diin waa ogtihiin marka hore magaalo yar inay meesha ka mid tahay xudumaha waaweyn meesha reerka waa ognahay. waxaan leenahay horta guuleysta sida u wadaan baan ku guuleysanayna insha Allah. waxaa jiraan waxa la dejiyo wanaag jirta waana isku jirtay deewana kala jiranayna hadii ay yiraahdo. Jaamac Abakar Dubbe iyo Khalid Xasan Xaaji Diiriye aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. soo dhawaada, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waa degmadiinii, waa degmadii Qoryaale, waa degmadii aad u dhalateen. codkana waa ka helaysaan. waxaanaynu qaadnaa wanka insha Allah bismillaahi kariim. wankana waynu qaadi doonaa. sooma siino codka. labada musharaxaantooda waa la idin sheegay midna waa Maroodiga, midna waa 205. kuwii hore idin yimina waa u ducaynaynaa. kuwana codka u buriya waxaba soo saara sidii xamaasadda lahayd inuu wax u tartami jiray aan u tartamo. dhammaanteena guul baa inoo rajaynaya. maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa musharaxiinta kala duwan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland ee ka sharaxan Gaashaanbuur Maxamed Axmed oo Khalid Xasan Xaaji Diiriye, Jaamac Abakar Dubbe. dadweynaha reer Qoryaale iyaguna ilaa saaka u taagnaa soo dhaweyntoodana dawladda way u sharaxan yihiin, way garanayaan. reer loo warwarayo iyo cid loo warwarayo ma aha. cid kale oo raacdo ama meel kale taageerto laga fakarayna ma aha. waa cid isku kalsoon, isku duuban, isku tashatay, la og yahay inay soo saarayaan labadooda xildhibaan oo kale ku soo saarayaan. marka maanta waxaa laydinka baahan yahay inaad codkiina siisaan labada xildhibaan ee hor fadhiya, xildhibaan Jaamac Abakar Dubbe, xildhibaan Khalid Xasan Xaaji Diiriye. horaa tijaabo horaa dhacdo intaasoo jeer baynu galay election ka galay. waxa soo baxay Cali Mareexaan baa inaga soo baxay, gabadh baa inaga soo baxay oo xilli ahaa. waxa weeye way shirraban tahay ayaa codkeenu ilaa lambartu meelahaas buu codkeenu ah. dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay labada musharax ee kala ah Khalid Xasan Xaaji Diiriye oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco iyo Jaamac Abakar Dubbe oo u sharaxan golaha wakiilada Somaliland, iyagoo taageerayaashooda uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaadhan ee ay u sameeyeen. waxaan idinka mahad celinaynaa sida noo soo dhaweyseen, aan nooga hortimaadeen, haddana aan noogu taagantiin. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. kollayda waxaan idinka martinaa reer Beereeda waa codka insha Allah bismillaahi kariim bisha 31 haddii aan ka dhigo labada musharax ee Maroodiga iyo 205. waxaan idinka codsanaynaa dhammaantiinba reer Beereeda noo codeysaan. annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu darihiina ka shaqeyno duruufiina dhaqan-dhaqaale ee deegaankan iyo horumarineed. waxaan idinka codsanayaa war reer Qoryaale ee magaalo reer Qoryaalnimadeennii iyo waxay saacaanteennii dee maanta ina xaqiijisaan oo codka ku xaqiijisaan. dee talku waa badan, kale cod badan baa la idin soo doonanayaa. annaga iyo Jaamac Abakar lambar 1 nagu ogaataan. wax ballanteenu waxa weeyaan markaynu soo baxno wixii wax qabada ee horumarina
ama baahiyaha aynu u baahannahay inaynu ka wada shaqayno aanu waxayda kala qabannaana u diyaar baanu nahay in badan waxaa maanta idinku bishaaraynaya reer qoryaalow cusbitaalkii dadka walaa oo in muddaa baanu soo wadnay waxoogaa qarashana aanu hayno insha allahu nina naga dhiman tahay idanka ilaahay codka noogu deeqa markaanu soo baxnaa inta kalena dhammaystirana cusbitaalka waa idinku bishaaraynaynaa maayirka magaalada burcaan waxaan doonayaa codkiinaan idinka baahana magaalada magaalada Riig baanu ka taagaynaa haddii alla idmo oo ilaahay uu nagu guuleeyo magaalo yar biyo dambe loo korimayo booyada qaar iyada laga qaado mooyane ilaahay idankii ballantaa waanu qaadnay saldhigga haddii ilaahay idmo oo aanu soo baxno waanu dhammaynaynaa meesha la yiraahdo xanaanadana waa ka howlgalaynaa wixii baahiyada qof ee wax laga qaban karayana dee waa qabanaynaa idinkana dee waajibkiina idin fari mayno waa garanaysaan magaaladan aynu joognaa Qoryaale waa degmadeennii waa degmadii Gaashaanbureed waa degmadii Maxamed Axmed waa halkii codkeena ugu badan yaalay halkani waa halka aanu doonayno codka ugu badan ka helo waxaynu ballanoo ay doon hore aad ugu ballan qaadeen ina codka si gobonimo loo siinaysan codkii sidii baa iyo waliba Saayid oo ina dhidhi ku dartaan baa la doonayaa Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco